sheekadu halkaas yay ka soo bilaabatay oo laba tiim oo anigu aan isku darayo oo la yiraahdo ma gudbayaasha yaa qolana waxay iska dhigeen inay Axmed Shukri difaacayaan qolana waxay iska dhigeen inay Cali Dhaantay iyo raggiisii dawladii hore la soo ceeshay ee la soo shaqaystay inay soo qufaan alaabadoodii waa kuwa iyagu aan meel u soconin ruux kasta oo ay arkaan inuu meel u socdana raba inay labada lugood qabsadaan oo ay ku dhagaan Axmed Shukri markuu soo baxay Axmed soo baxay gani markuu soo baxay yaa waxaan dhacday qolo un baa yidhi ninkan isee u soo baxay bahal horta xaasidnimo weligay meel ay taala aanan arag deegaanka Soomaaliya taala ruuxan fara laga hayn waa yari dadkina la wada bedeli karo dadkiina intaynu raaro qowmiyada kale meeshii kuma soo bedelan karo war taalantii aad dawladdan joogta kula shaqaysaan oo ta iman doonta kula shaqaysaan oo tii hore kula shaqaysaan raganimada ninkii lahow billaahi calayka la imow laakiin dadka ku dhigin kaan lahayno raalli ahoo shacab ahow deegaanada inagu hareeraysan ruuxu isagoo waxba isla haynin haddii la arko isagoo dadaalaya waa la dhiirigelin xoogsanaya isagoo xoogsanaya haddii la arko waa la dhiirigelin halka deegaanka Soomaalida ruuxa in lugaha lagu dhago la ceebeeyo la fadeexeeyo halka qof ee waxtar leh sida Cali Dhaanto iyo Axmed Budul iyo abwaanada iyo fanaaniinta waxaa joogta boqolaal aan waxtar lahayn oo u joogta inay iyaga oo ceebeeyaan badan ma gudbayaashu waxay yiraahdeen Axmed Shukri wareysigiisa intay daawadeen waxay yiraahdeen Axmed Shukri waa mid ka mid ah dadkii dhibaatooyinka geystay kii dhibaatada geystay waa Cabdi Ilay hada Cabdi Ilay afka ka soo baxdo intaadan dhamaynin buu mid ku haystaa heernimo u garab ordayay kan waa la jir dilay maan habeen hore waxa la iga sheekeynay nin waxa jira leeyahay ani aabahay markii meesha ka soo baxay buuxii warin kaar qabay maxaad ani aabahay uu haysay adii lagu gareeyay oo hadda adigu wax sheeganayso adigu inta sheegato isu fashirin weydo aniga ii dhibtay oo aniga ii sheegaysay mar walba oo hadalka soo qaadaba ani aabahay ila wuxuu aab meesha la istaajiyay hadii lagu istaajin la waxa dheelalay أني هو يدي بعدين اسمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال كسر دوادا برنامج كنا قولك هذا وحا دhinacaygan fadhiya ama gees hoojiya saaxiibkay gulida lifle barnaamijka qaybtan waxaan ku eegi doonaa hadii ay ogolaado deegaanka Soomaalida maalmaha la soo dhaafay iyo saacadii la soo dhaafay waxa aad baraha bulshada looga hadal hayaa muuqaalo la soo qarxinayo markaan leenahay dadka Soomaaliyeed waa luqadda hadda xilligan ay fahmi karaan marka kama wadno qof qaawan laakiin waxaan ka wadnaa dad ama wasiirro ka ahaa ama maaragtay hawlo kale kala soo shaqeeyay dawladii hore ee uu hogaaminayay Cabdi Maxamed Cuure Cabdi Ilay oo laga dhigayo dambiilayaal oo fariimo ay qoreen oo muuqaalo ay baahiyeen ama heeso ama dhaantooyin ay sameeyeen dambi looga dhigayo oo baraha bulshada lagu baahinayo ayaan waxa way barnaamijka ku falqayn doonaa iyo ujeedka laga leeyahay wax ka dambeeya waxaan wax ka weydiin doonaa arintaasi waan isla falqayn doonaa ama isla gorfayn doonaa saaxiibkii gulid aad baan ku soo dhaweynayaa سلو أدب ما صنتها صاحبك الكعسة دبداش إنه سلامنا واي ديانك هرت ما جوت واجي دبتوين كده عين يوم ماي إلهي بتشوتين واجي إسفشل في ما جوي وان كسو قحي ديانك مالمهن فنانين وزيرو ضد وحوي أدب وسوق رحنا يعني كنا مقالة iyo waxa weeye qoraalada ay qoreen wax noocaas aad soo dhagan risidu waa inta aad ma santahay horta sheekadan 24 saac ugu dambeysay ee aad u socotay baraha bulshada gaar ahaan Facebook waxayna ka soo bilaabatay waraysi uu qaaday fanaanka weyn ee muxtaramka Cali Dhaanto oo nin saaxiibka ah iyo nin la yiraahdo Axmed Shukri oo hadda soo baxay oo isaguna rafiiqad baanigaas waa heer fiiqeed wali waa jaajaalayaashii oo nin saabahasha uga tuuray ninkaas iyo waraysi ka qaaday sheekadu halkaas ee ka soo bilaabatay oo laba tiim oo anigu aan isku darayo la yiraahdo ma gudbayaasha yaa qolana waxay iska dhigeen inay Axmed Shukri difaacayaan qolana
waxay iska dhigeen inay cali dhaantay iyo raggiisii dowladdii hore la soo ceeshay ee la soo shaqaystay inay soo qufaan alaabadoodii laakiin labada garab yay kala jiraan waase isku tiimka ama gudbayaashu wariyaal ma aha abwaano ma aha ma aha maxaan ku idhaahdaa fanaaniin ma aha dad bulshada wuxuun micno leh ilaah wax lagu qoslana allaha ka dhigay majaajilaystayaal ma aha dad wuxuun soo kordhiya ma aha waa kuwo iyagu aan meel u soconin ruux kasta oo ay arkaan inuu meel u socdana raba inay labada lugood qabsadaan oo ay ku dhagaan hadda Axmed Shukri maxaa soo kiciyay hawshiisa waa sidee xiraya marka wax hadda sheekadan Axmed Shukri kulli ma wada daawanin laakiin iyadoo goosgoosana TikTok aan ku arkay lafteedu saan baan ahay laakiin waan raadin doonaa waan daawan doonaa YouTube kana waxoogaa waan ka daawaday marka waxa isku xidhaya hadda sheekada waraysigan cali dhaanta uu qaaday iyo waxa weeye waxyaabihii deegaanka hore uga dhacay muxuu yahay wax isku xidhaya waxa isku xidhaya Axmed Shukri markuu soo baxay Axmed soo baxaygani markuu soo baxay yaa waxaan dhacday qolo un baa yidhi ninkan isee u soo baxay bahal horta xaasidnimo weligay meel ay taalla aanan arag ee deegaanka Soomaalida taalla deegaanada kale ee ummadda kale ee inagu hareeraysan Soomaalidu ay degan tahay ma taalo xaasidnimadaas maxaan ku cadaynayaa qofku hadduu wuxuun talantiga soo gudbiyo oo uu keeno jigjiga talantiga kaliya yaa lama taqaanaa waa socodka waxaa lagu dhihi halkaasaan kasoo soconayaa muuqaaliga duub bahal dhaantaa lagu saari ama hees kaabas ayaale ruuxii wax ku soo kordhiya marka ee u yimaada dhammaantood way kula dagaalamay ma gudbayaashoo dhan deegaanada inagu hareeraysan ruuxu isagoon waxbaba isla haynin haddii la arko isagoo dadaalaya waa la dhiirigelin isagoo xoogsanaya haddii la arko waa la dhiirigelin halka deegaanka Soomaalida ruuxa in lugaha lagu dhago la ceebeeyo la fadeexeeyo la dhaho waa la iibsaday la kadeeda mooyee aan wax dhiirigelin kugu taraadan arkayn haddaad jilicsan tahayna meel laba u socon maysid maalinka dambe waxaad ku noqon war muuqaal iga soo duuba halkaasaan ka soo socon waxaan arkayaa afakaadhiya nuuro maalmaha muuqaallo iska duuduubay inuu taalantiga xitaa iyaga ka guuray yaan baqdinka qaba marka waxaa dhacday waxaan taa ku darayaa deegaanka Soomaalidu dhalinyaradiisa ma jecla ma aha dawladda ma aha odayaal ma aha bulsho gaar oo meel degan ee sideedaba dadkan deegaanka ee isku neefsaday ee isku dhaqanka iyo isku bay'ada ah kuwa iyaga ka soo dhex baxa ma indha buuxiyaan dad meel kale ka yimid laakiin aad buu u jecel yahay waan ka soo gudbo qoladan ma gudbayaashu waxay yiraahdeen Axmed Shukri waraysigiisa intay daawadeen waxay yiraahdeen Axmed Shukri waa mid ka mid ah dadkii dhibaatooyinka geystay maxay u sababeeyeen waxay yiraahdeen markii la dhibaateynayay la ciqaabayay wuxuu yiri hooyadii bas yeelin ooyine hooyooyinka kale bahasha gaarsi baan sii waa ruux dhiban oo la ciqaabayo hadda kii isaga ciqaabayay ee meedadka ku soo rarayay ee dadka leynayay wali waa cornel ama waa janan uu joogaa kii dhibaatada geystay waa Cabdi Ilaahay hada Cabdi Ilaahay afka ka soo baxdo intaadan dhamaynin buu mid ku haystaa heernimo u garab ordayay kuwii dambiilayaasha dhabta ahaa cid lama xisaabtami karto laakiin miskiinkan aan munaafiq ahayn waxba mu qarin ninka waa nin saraaxa warrama inta yaran ka arkay miskiinkan yarka ah daacad warramaya waxaa lagu haystaa inuu yidhi hooyadaa keligeediina ooyina hooyooyinka kalena oo hinda gaarsi baan sidii oo waxbaan sheegay waa ruux la ciqaabay weliba hadda guulada markii ciqaabta laga hadlay deegaankeena dad ku dhici jirtay ama biyo adoraale ma ku soco ama biyaha la isma khursiyo qofka intii biyo la geliyo ha lagu ciqaabo oo markay naftu qabato laga soo bixiyo hal yiraahdo wax sheeg ama bac intii basbaas loo guro wuxuu ahaa madaxa loo geliyo ama intii hog madow la geliyo biyo korka laga shumo ama maartay saxara iyo qashin lagu daadiyo aqaama adag baa la marinayay ciqaabta marka la mariyo
qofku isagoo waxba sameynaba marka nafta qabato iyo waxa way waxba wuxuu iska sheegayaa oo leeyahay aniga waxa way saan ha iyo hooyadii waa saan kan waa la jir dilay laakiin naga saaha maan habeen hore waxa la iga sheekeynay nin waxa jira leeyahay aniga aabah waaye waxaa dhacday waxaa hool wardheer ku yaala la isugu keenay dadkii isagoo baadiye ka yimid oo miskiina ninkaas waa joogaa waa salaamaya waaye isagoo baadiye ka yimid oo miskiin oo meesha fadhiyo baa la yiri istaag isfashili labana ciqaabe waaye wuxuu yidhi aniga iyo aabbahay nimanka on laftaha yaa raashin sidaa u siinay halkaa ku siin aniga iyo aabbahay cadays baan ugu geynay halkaa aniga iyo aabbahay halkaa iyo halkaasaan sameyn aniga iyo aabbahay sonkor baan ugu geynay aniga iyo aabbahay hebel iyo hebel baan la jooga odaygii wuu fadhiyaa meesha ninka hadda waxaa la yidhaahdaa aniga aabbahay odayga wuu fadhiyaa markii meesha kasoo baxay wuxuu war inkaar qabay maxaad aniga aabahayda uuna haysay adi lagu garaye oo hadda adigu wax sheeganayso adigu intaad sheegato isu fashilin weydo oo aniga ii dhibtay oo aniga ii sheegaysay mar walba oo hadalkaa soo qaadaba aniga aabahay ila wuxuu aab meesha la istaajiyay haddii lagu istaajin lahaa waxaad dheelalahay aniga hooyaday baad dheelaysmaya meel xilla lagu dhig baa maqli jiray meesha aan istaagay iyo haddaan istaagi lahayd waxaad dheelayd wiy aniga iyo hooyada anigu aniga aabbahay horine waxa hooyada aad u yeedhi lahayd wiy marka anaa ku dhaabi lahaa wargaclaha marka ninkan hadda intaa yidhi ee ciqaabtii la ogaana soo maray yaa waxaa la leeyahay waa dembiil oo dadkii dhibaatooyinka geystay iyuu ka mid ahaa waaye kuwii geystayna lagama hadlayo waxyaabaha kale lagu haysto waxaa ka mid a waxaa la leeyahay muxuu u qiiroon layahay oo u ooyi lahay markuu wala soo bixinaya maxaa dhibaatooyinka uu sheeganaya oo dee muxuu ooyi ninkani wayba qala isagaa xitaa soo qoray wuxuu yi qasamadii oohinta way qalashay aniga waxaana ka duldhacayay ma ninka sheekeyntooda hadda ka ooyi karaa ninka mid lasoo saaray uu ka lumay midda kale dee hadda oohin ninkaasi uu ooyo maxay tari oo caloolxumo aan ahayn wax qalbigiibaaba gubtayba wax intan ka badan buuba arkayba isaguna uusan geysan qaabka hadda waraysiga u bixiyey waa qaab isaguna uu ku nafisay qof alaala qofka waraysiga daawada xitaa waa qoslay hadduu xitaa culaysaystay isku soo wada duudub laba ma gudbayaal oo qolana iska dhigaysa inay isaga difaacayso iyo qola iska dhigaysa inay isaga weerarayso dembiilo ku sheegayso yaa meeshii joogay qola waan kasoo sheekaynayo waa kuwa isaga hadda eedeynayay qolada hadda isaga tiimkiisa ka socotay wax soo qarqarxinaysa yaa rabaa in iyagana dul istaago qoladaasu waxay haystaan fanaaniintii waxay haystaan abwaanadii waxay haystaan dadkii meeshan deegaanka dee wax ka ahaa haddana ka ah waxay ku haystaan inay dowladdii hore la soo shaqeeyeen tanna ay la shaqeeyeen iyagu ba iyo ta toona iskuma hagaajin karaan dowladdii horena lama shaqaysan karaan tanna lama shaqaysan karaan waxna ma soo gudbin karaan laakiin anigu de eedahooda ma qaadanayo cali dhaantana eediisa ma qaadan karo axmed budulla ma qaadan karo kuwa halgamayaasha ku duldhaanteeyeyna eediisa ma qaadan karo waa qaladaad ka dhacay baan laakiin leeyahay laakiin nimankaasu dowladdii horena way ka maarmi weyday tanna way ka maarmi weyday deegaankoodii iyo taalantooda ku joogaan xilmiyooday saaran yihiin dowladdii hore way ka maarmi weyday dee dhaantooyinka u sameynayeen way dunto way khaldanay soo ma tanina intay u yeedhatay ka maarmi weyday oo dhaantooyinkii bay u samaynayaan iyagu mar raba waa dadkaas dee ma dad kale aynu abuuranaa deegaanka waxa jooga oo dhan haddii hadda la isu geegeeyo ruuxaan fara laga hayn waa yari dee dadkiina loo wada bedeli karo dadkiina intaynu rarro qowmiyado kale meeshii kuma soo bedelan karo war taalantii aad dowladdan joogta kula shaqaysaan oo ta iman doonta kula shaqaysaan oo tii hore kula shaqaysaan raganimadaa ninkii lahow bilaahi calayka la imow laakiin dadka ku dhigin kaan lahaynow walaalow haddaadan dowladdana la shaqaysan karin tii horena la shaqaysan karin ta soo socotana la shaqaysan karin raalli ahoo shacab ahow weliba dadka hadda guryada waxaa badan qof baa wuxuu rabaa fursad qof kale uu helay inuu ceebeeyo hadduu isagu heli lahaana uu geli lahaa ugu wada muxuu hebel ula shaqeeyey
mid ka mid ah muxuu mucjisooyinka qandaraas hebel u qaatay mid ka mid ah muxuu mucjis waxa weeye shaqadaas u qabanaya muxuu xilka loo magacaabay u aqbalay iyo waxa weeye ku ceebeynaya qofka isagu hadduu heli lahaa weliba iska daa waxa laga yaabaa hadduu heli lahaa ninkaas hebel hay meesha xafiiska jooga inuu sawir la galo hadduu heli lahaa waxa weeye wuu samayn lahaa fursadaas ka faa'iideysan lahaa laakiin qof shaqo helay oo meel loo magacaabay ama fursad kale helay oo laga yaabo bilkiisa inuu ka dhacsanaya yaa wuxuu rabaa waxa weeye inuu ku ceebeeyo hebel muxuu meesha ugu shaqeynaya hebel meesha shaqada muxuu ka qabanaya hadda nimanka fanaaniinta la haystay caldaantiya kamid yihiin ee la soo saaray dhaantooyinkii hore ee u qaadeen xilligii dowladii hore haddana waxa weeye iyagoo dhaantooyin kuwii ka fiican oo ka wanaagsan oo ama halgan loo qaaday ama loo qaaday deegaankii nabad ka jirta ama khayraadkiisii loo qaaday ama bulshada deegaanka loo qaaday yaa la soo dhigaya oo lagu difaacaya marka qofka fanaanka uu inta badan isagu waxa weeye kolba dee ciddii hawl qabanaysa baa u yeedhato wuxuu wax la qabtaa dowlad kastana inta badan way la shaqayn karaan fanaanku shaqadiisu waa fanaannimada weeye xirfadiisu waa intaas ninka wariyahana shaqadiisu waxa weeye wariyanimo weeye qofba waxa weeye shaquu leeyahay ninka fanaanka marka hadduu dowladdii hore fursad ka helay oo uu iskala soo shaqaystay deegaankiisii buu ahaa meelu hadda u carar lahaa maad garanaysa adigu maya hadduu fursad heli lahaa hadduu fursad heli lahaa waa la gartay laakiin hadduu fursad helinba oo deegaankii joogo hadii deegaankii un wixii ka jira inuu waxa weeye uu wixii fursada uu helo uu waxa weeye ku shaqaysto hadalkaagaas wuxuu xasuusinayaa ilkaaso kuwa meelay u maraan la madaxtooyada ama wasiir hebel meel u mara la yaa adiga wuxuu kugu dhaleecayni maxaad isula soo sawirtay maxaad ugu tagtay maxaad wanaagba uga sheegtay isaga haddii hal taleefon intii loo diro la yidhaahdo halkaas joognaa noo imow kabuga cad ku qaalabiya isagoo xitaa gabihiisa soo qaadanin buu imanayaa kan aan waxba soo kordhin karin wariye ahayn abwaan ahayn fanaan ahayn taalanti lahayn tii hore wuxuu kula shaqeeyo iyo tan dambe wuxuu kula shaqeeyo ba iyo toona aan garanaynin waa kuwa hadda soo qufaya wixii horeyna loo yidhi maantana la leeyahay midda kale deegaanka soomaalida mushkilad baan ku arkay war shalay waxaan sameynayay maanta miyuuna ila khaldanaan karin sanadkii hore wax aad qortay yaa laga yaabaa sanadkan hadduu dee wax qofka garaad iyo waxa u kordhay khibrad waxa u kordhay mogta sanadkii hore qoraal aad qortay baa laga yaabaa sanadkan inuu kula xumaado qalad buu kula noqonaya waxaan ka wadaa iyagu waxay ku dhihi bilmitana cabdi ilaa shalay taageerayay maanta ila khaldanaaday soo ma ilaa aayad quraan oo samada ka soo degtay ma aha xadiisna ma aha diin iyo caqiidana ma aha waa shakhsi aan shalay taageeray wayna ila qumanaatay maantaa timaaday way ila khaldanaaday waxay ku dhihi ha ka hadlin waaye ma shalay khaladkan khaldanaa waan ku adkaystaa maya waa inaan sheegi karo siyaasadda dadkeenu diin bay u maleeyaan deegaanka soomaalida qofka xisbi ka tirsan intuu xisbigaa ka taga xisbi kale kuma biiri karo waa qof sharaf dhintay waa qof dhintay waa qof aan waxba ahayn waa qof isbebedelay waa qof kan ah siyaasaddana saa uma shaqayso kenya waad arki kartaa doorashooyinkeedana xoogaal baa u tahay ragga isku xisbiga ahaa yaa intay kala boodaan yay laba xisbi kala samaystaan yaa isjafaankiina waaba iskaga tagaanba aada iyo aad la dhihi maayo hebel shalay sidaasuu ahaaye maanta muxuu sidan u yahay aniga aragtida aan maanta siyaasadda ku qiimeynaya deegaanka taalla waa tan maanta ee hor taalla aada iyo aad haddaan danahayga ka waayo haddaan danaha gobolkayga ka waayo etoobiyada guud haddaan danihii deegaanka soomaalida ka waayo dee ma ku daba dhegnaanayo waan isbedeli ma ahe intaan isbedelaan wixii aniga markaa ila quman sheegaya kale marka aan usoo noqono mawduucan iyo dhalinyarada aada iyo aad waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo hal qodob oo ah qofka deegaanka soomaalida ka soo jeeda ee hal abuur la yimaada sida axmed shukri oo kale waxaa joogta boqolaal aan hal abuur la imanaynin
oo u taagan inay ceebayso halka qof ee waxtar leh sida Cali Dhaanto iyo Axmed Budul iyo abwaanada iyo fanaaniinta waxaa joogta boqolaal aan waxtar lahayn oo u joogta inay iyaga uun ceebeeyaan xukuumad iyo deegaan iyo nin markaa xukunka joogayay dee waa in la kala saaro deegaanku wuu joogayaa ninka xukunka joogayana wuu tegayaa aniga marka hibadeyda iyo talantigayga haddii kan joogayna ka faa'iideysto ka soo socdaayna ka faa'iideysto dee meesha waa ragnimo aan anigu isku geeyey Axmed Budul iyo Cali Dhaanto iyo Hebelow iyo dadkan la wadayna dee wax iyaga shakhsiyadooda wax weyn u dhimaya anigu kuma difaacayo oo ruuxu anoo xukuumadda la shaqeynayaan wuxuun gadaal dhigan karaa aad iyo oo aan ku kala tagaynin laakiin waxa intaa ka soo haray shakhsiyadayda dhibaatada ku noqonaya tanaan kula shaqeynta soo socotaan kula shaqeyn tii baahatay iga maarmi weyda yaan kula shaqeyn maxaan ku yiraahdaa haddii la ii baahan waayo oo la iga maarmana dee cidda loo baahday ee laga maarmi waayo boos ka gashay yaan ku ixtiraamiyo iska daba fadhiisan inta anigana jaaniskayga aan ka helay markaan isku soo duuduubno mushkilad deegaanka Soomaalida aan ahayn dhalinyarada aan talentiga lahayn oo ka jirtay ma jirto mushkilad aan xaasidnimo ahayn qabrigii Cali Shawaac aan maalinka dhaweeyay wax ka duubay Allahu naxariisto meesha qudbada laga jeedinayo tacsidu taalo ma war kala yaal makarafoonkan wax ku duubay nin wariye sheeganaya iga qaat nin kale oo wariye gamaadid la yiraahdo aad u salaamayo saaxiibkaya yaa samiicada agteeda ii geeyay makarafoonka waxaan xaasidnimo ahayn oo haysana ma jiro ninka iyo inaan la duubanin tacsidaas bal protocolka madaxweynaha meesha yaala waa kee إلا شير جرا هذه اللي قوانا يا برتقال مدحوينها كاميرا شقيسة arrimo siyaasadeed haddii laga hadlayo shaqaysaa tacsi la taagan yahay ninka wariye sheeganaya ee mikrofoonkiisina ku reebaya madaxweynaha kaygiina ka qaadaya waxaan xaasidnimo ka ahayn oo haysa ma jirto intaan la dagaalamaa weliba anuu madaxweyne ku celiyay mikrofoonka way kadib haddana soo qaadaan isirida intaan ka badan si dagaalami kari maysid أنا وحشاضي جامد ديدو أكتر نبي وركان أنا مكرافون كسمع عدا أكتر كوجيني بركة ديجان كنا واحد حاسين ما هين تعالى ما شرت أحمد شكرنا واحد هذا اللي وجود جاي وحاول محاضر رئيسي قرحي قصص ميس كون ورياشة فنانين أبوان ندى واحد اللي وجود جاي وحاول محي دولتنا يدين كم مرمو يدي أعطيه هرنا ورصع عشتين تنا ورصع عشتين وبالله عليكم إن يجي إلهي وقرأ بيكعون توالبا هذا تو الله لا عوني معيان استشيه way kuwii ba xarqoonayo nool maanta ama qurba jooga ama qaarkood gudaha jooga waan cid wax u qabsanin nimanka fanaaniinta ee shalan waxa weeye maamulkii jira shaqaysanayeen kulli iyo xabadna ridayeen cid waxa weeye aan dilaynin maantana waxa weeye dadkooda la nool ee wacyigelinta iyo ummadda loo adeegayo qaybta ka yaan aad loo soo farfaarin waxeeda haddii se in uun dad dambi lagu soo oogayo oo cid farta lagu fiiqiyo oo cid soo qarxin oo cid la soo qofay waxeeda kuwii dambiyada geystay cidii markhaatiga ka ahayd ee joogtay ama cadeyn ka haysa iyagu dawladda iyo hay'adaha ay khusayso ha u gudbiyaan oo ha dhahaan dadkan dambigan geystayna ha lagu xisaabto waliba guddi baa la sameeyay guddiga tacadiyada deegaanka waa joogtay kulli waad ogtahay waxay aruuriyaan tacadiyadii deegaanka laga geystay hal la wadaago maxkamadda deegaanka dhan bay marayaan qof la qofkii markhaati ee waxaya guddigaas u gudbiyo iyo hay'adaha kale ay khusayso laakiin qof dhalinyaro oo shal iska xamaalinayo iska heesayay waxa weeye iska dhaanteynayay oo dhiiqada la gelinayo laga yaabo qofkani cabsi inuu u galayba oo laga yaabo markaa qof damiirkiisu inuu diidanaa oo san arintaas ogolaan inuu sameeyo ama lagu qasbi karaa lagu dhaqaaqo la wixii jaan ka jir waan ogeyn mid kale waxa la maqan rabina ku gabagabay waxa weeye fanaan siyaasad yeesha oo urur ka tirsanaada xagee lagu arkay fanaanku siyaasad ma galo qoladii timaada uu heesaa وحماشة هذه أروسيد وحنا كيسا ساس وريونا إسقونا سياسات مقالو أو حكومة جوني أكومة جورعنا لكن ده إنكو إن شقدي وريه برهكم بيدك بلعبة ديجان كهذا ترى هذا وانك صور ربيع
oo tuulada yare anigu aan ka imid daratoola ama danooda aan idhaahdo maanta aan ka warramaya waxaa la dhihi imisa lagugu siiyey oo yaa caada lacagii ku siinaya caado aan ku dhashay baan anigu sawiradeeda soo gudbiyey geel anagiina caanahan kasoo dhadhamay oo waan soo seexseexday meelaha ciidii casayde waayo cidda lacagii ku siinaysa iyo cidda ay wax u tarayso waa cidna marka mushkiladahaas waa badan yihiin ummadda deegaanka ilaahay kor ha usoo qaado waagii heegadin heego waa la wada ahaa dadku heego in bay lahaayeen cid badbaadi in badanna cabsi baa ka keenayso dadku waxaa weeye wixii iyagoon raalli ka ahayn bay danta ku qasbisay waa cabsanaya in wixii ay u sacabatomaan oo waxaa weeye ay iska raacaan oo waxaa weeye ay qaar badan oo sawirada ay galeen ee lagu khasbay ilaahu yaan la soo bixin inta haysa jir oo wadna farta kuwa warbixinta khasab lagaga duubay la ii soo samee hadaa hadda dhageysata aad wiswisi haddana dadka ugu qiimo badana waa jira aad iyo aad marka waxaan oran jiray deegaankeenna iska daa waxaa weeye qof wax lagu ogyahay dadka nadiif xataa in qofku nadiif ahaado oo intuu iska labisto iska waxaa weeye bariiskiisa iska cuno xataa hadduu xamaal helayo ma jirin ganacsi madax bannaan laakiin hadduu xamaal helayo ama in yaroo bila bannaanka looga soo dirayo uu iska cunayo oo nadiif iska hado lama ogolayn ninka dhiiqada ku jira wuxuu jeclaa in dhiiqada lala galo ninka wax dilayo wuxuu jeclaa in dambiilo lala noqdo wax lala dilo jeclaa oo ereyo badan baa jira oo seexan waa iyo yacni aragtiisu aragti xisbi maaha iyo aduu wax kale aad aaminsan tahay iyo waa iyadoo fadhida iyo waxyaabo noocaas jira marka dad badan oo waxaa jiray cabsi darteed kuwa ama halala xisaabtamo dadkii dhibaatada loo geystayna yaan waranka lagu lijinin ee ugu yaraan yaraha nafisay ee intay wixii ka yar waxaysmeen ka yar degeen iska xamaalanaya iska noolaa iska wardinaya masaajidka kaga jiray yaan lagu lijin haddaan waxba loo qabanayn oo dan kale waxaa weeye wax qof dan kale leh in waxaa weeye dadkan waxaa weeye xoogaa xanuunkii yuusan soo xasuusin aad u maasanta gulado way waan soo gabagabaynaynaa barnaamijkaas kusoo gabagabaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal